waxaan rabaa inaan hadda iyadoo hoolkaan joogno kulub qiimaha annaga Jubbaland ahaan ay noo leedahay inaan aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanku way isu soo raacnay inaan xafladdan ka qayb galay masiyaad gaar ah leedahay oo jaamacadda Kismaayo iyo waxbarashada labadaba aanu siinayno marka xildhibaanada jooga iyo gudoomiyaha iyo kulligood waan idinka mahadcelinayaa waan idinka bogaadinayaa iyo waalidiinta meesha kulul daraadeed waxaan rabaa waxbarashada aan saarno culayska ay leedahay waxbarashada aan siino muhiimadda inta aan ku mashquulayno maanta siyaasiga Soomaaliga wuxuu boqolkiiba boqol mashquul ku yahay siyaasad kursi xageed ka soo noqon xageed ka tagaysaa laakiin shayga muhiimkii waa maxay waxa intaas oo dhan ku daboolaysa oo ku qaadaysa midhaha aad soo saarto amniga aad keento waxbarashada dadka si ay u galaan wax soo saarkii horumarinta bulshada maxaa nolol ah midaas taariikhda gasha laakiin CV-ga lagu raadinayo kursiga ku fadhiyay macna ma sameeyo CV-ga waxa galaya oo kuugu darsamaya dhibcaha sida maanta Dr. Maxamed Weli ay ugu darmayso riyadiisii agoon ka soo bilow iyo ilaa jaamacad maanta inta isku soo xidho riyadaas ugu xaqiiqowday inuu qofku ka fakaro waxa bari uu ka tagay taariikhda waxa ay noqonayso inuu fiiriyo aad iyo aad baan idinku ambaliyaynayaa waan idin bogaadinayaa waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ardayda jaamacadda ka qalin jebinaysaa marxaladii koowaad baad ka qalin jebiseen hore u sii wada oo gabadhu saddex iyadoo u dhashay ha qaadato PhD-ga oo wiilku isagoo shaqeeya ha qaato oo waxbarashada la sii wado oo yaan laga daalin waalidkoodna ilmuhu intuu shareemo geli lahaa Facebook ku jiri lahaa cid kale macallin u noqon lahayd macallin fiican oo leedahay adigu u dirso oo waxbarashada kula dadaala shaqaalaha waan u sheegay jaamacadaha in la hormariyana waan ka hadalnay aad iyo aad baad u mahadsantihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته